dhinaca kale xildhibaanku waxa uu ka jawaabay hadallo hore uga soo yeedhay qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Somaliland. wasiirka waxbarashada ayaan arkayay maalin dhowtoole oo shaqo aan loo dirsan oo loo idman markii xildhibaano ka mid ah xildhibaanadan hadda cusub ee soo baxay ay kala hadleen arrin waxbarashada ku saabsan oo isku qaaday oo isagoo ku hadlay afka aan anigu aan saro karo waa afka dhalinyarada suuqa ay ku hadasho shaqadiisina garan waayay qorshe arrinka loola tagay xildhibaanadu la tagayna waxay ahaayeen dhalinyaro ka timi Sool iyo Sanaag oo ka caawinaysa scholarship ama waxdeeq waxbarasho ay heleen oo si la rabay u dhici weyday dhowr cisho ay hortaagnaayeen wasaaradda waxbarashada waxna laga qaban waayay wasiirku ama agaasimuhu cid u soo baxdo la hadashana la waayay ay nagu yimaadeen aqalka golaha wakiilada iyagoo cabasho muujinaya xildhibaano naga mid ah raacay wasiirku u raacay si sharafi ku jirto ayaan ula hadalnay oo loola hadlay laakiin waxa aan aad ula yaabay oo waxdee loo dulqaato aan ahayn hadalku ka daba keenay markii loo tilmaamay dhibaatada dhalinyaradaas tirsanayso horta wasiirku waa inuu fahmaa xildhibaanku wuxuu hadalkiisa ku daray wax laga yaqiiqsoodo weeyaan in xildhibaanadu u hadlaan dhalinyaro ama waxbarasho waa in sharcigii sameeyaan sharcigii ku koobnaadaan wasiirka aqoon darro كمان فيلين إنه وانين قربها سو مريحيتها وحبرتي دلك وحكو برتي تين بدنا يعني كل حجر الحكومة ده مركمان كمان فيلين إنه ما أنت سوا هذا لأنك يكون تيدي لها له إنه هذا أيه هيت لكن سيدو هذا حكم وقتها قون ترى يدي مقرنا إنه سيليه لاي مركا حلبانك شعب كصوت دورتي ومثلية وحكومة مثلية إن وحكستو باهية أو هاي سمركا وكترجمه oo uga doodo oo u raadiyo marka laga yimaado xeerarka iyo wixii ku saabsanba marka wasiirku saas uu dhigay hadalka marka wasiirka waxaan tusi lahaa oo halkan doonayna ka tuso iskuulkan waa qabyo waa shaqadii wasaaradda waxbarashada aad ka mas'uulka tahay halka kale gol waraabe aan sheegay iskuul la'aan baa ka jirta haddaan magaalada maanta maro iyo dalka inta baahi ee waxbarasho ee ka jirta waxaan malaynayaa inaanay kun ka yaraanaynin marka waxa ay inuu shaqadiisa guto shacabkana waxaan farayaa inay fahmaan wasiirka shaqadiisa oo kula xisaabtamaan iyo xildhibaanka shaqadiisa xildhibaanku waa xildhibaan xasaanad leh waa xildhibaan shacabka metela waa wakiil ayuu shacabku yahay wasiirkuna waa shaqaale oo madaxweynuhu qortay waa shaqaale marka wasiirinu uga jawaabo xildhibaan maalin dhow xitaa waxaan maqlaay wasiirka difaaca qaranka oo shirgudoonka wax ka sheegay nin wasiiri oo shaqo loo diray inuu dadka u shaqeeyo ma aha inuu arrimaha golaha iyo wixii ku saabsan ka hadlo inay shaqadooda ku ekaadaan haday tahay arrin xisbiyadu ay arkaa ay ka wada hadlaan ayaa habboon madaxweynahana waxaan fari lahaa maalintii dhawada shirgudoonka la doortay wuxuu sheegay inuu la shaqayn doono golaha oo soo dhaweyn doono marka wada shaqayntu waxay ka bilaamaysaa madaxweyne inaad wasiiradaada wax u sheegtid oo wasiiradaada tustid xildhibaanadu shaqadoodu waxay tahay wasiiradaadu inay tababar rasmi ah ay helaan markaas bay cadaanaysaa inay ballankii aad qaaday aad kaga dhaweyn doonto wasiir shaqadaadii ayaa dayacan dalka meel kastaba iskuulkan waa iskuulkii maxamed mooge waad aragtaa dayaca ka muuqda jiingad la'aanta ka muuqata intaa way dhaafin kari waayeen shacabkii intii kale iyagaa qabsaday marka shaqadaadi waa tan maxamed midhaq warsame Ariel TV Hargeysa.